Bismillahi Rahmaani Rahiim. Kusoo dhawaada Sayax Teach oo ah website aad ka barataan casharada IT-ga. Casharkan waxaan kaga hadlaynaa sida ugu fudud ee aad WhatsApp-kaaga ugu dirsan kartid application adoon isticmaalayn wax software haba yaraatee. Ugu horreyn waxaad u baahan tahay Easy File Explorer oo aad ku arki doontaan linkiga hoose ee videoga soo gelin doono. Kadibna app baan ka dooranayaa. Waxaa halkan igu soo baxaya dhammaan applicationska igu jira mobilkayga. Waxaan dooranayaa applicationka aan u baahanahay inaan diro. Tusaale ahaan anigu waxaan dooranayaa Share It. Waan tuujinayaa kadibna waxaan ku dhufanayaa dhankan hoose Backup. Kadibna waxaan imanayaa dhinacan soo riixaya dhinaca localka Backup app. Kadibna waan tuujinayaa Rename waan odhanayaa. Waxaan ka bedelayaa magaca APK. Waxaan u bedelayaa .txt. Then wixii qoraal bay noqdeen waan tuujinayaa. More baan odhanayaa. Share. Waxaan u dirayaa WhatsApp qofka alaaliyo qofka aad doontid. Tusaale ahaan lambarkan aan ku dirayaa waa lambar aniga igu jira waa WhatsApp labaad. Wax yar baad sugaysaa. Sidaan u jeednaa waa uu tagay hadda. Waxaan tagaynaa dhankan kale ee WhatsApp-ka. Isaguna wax yar sug inta uu imanayo. Sideen wada arkayno hadda waa uu furmay. Kadib waxaan sameynaya waxaan ku laabanayaa Easy File Explorer. Waxaan ka dooranayaa dhanka localka. Waxaan dooranayaa WhatsApp. Kadibna waxaan ka dooranayaa Media. Kadibna waxaan ka dooranayaa GB WhatsApp. Share It waa kan. Rename waan odhanayaa. Magaca .txt waan ka bedelayaa. Waxaan ku bedelayaa .apk. Share It ka toos ayuu soo baxay. Ku dhufo kadibna install leh. Daawasho wacan. Fadlan haddii aad ka heshay casharkan share iyo like subscribe ha ilaawin YouTube-ka si ay ula socdaan asxaabtaada. Waa mahadsantihiin.